daawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda radio baraarug media.com idinkoo saaxiibayaal subscribe iyo like share garanta la soo wadaagtaan saaxiibadiina kala lahay laawila idinkoo subscribe ku dhufanaya kambaleel kana furanaya si markasta halkan aad nagala socotaan weena Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga xaakimka talada dalka haya ee Kulmiye ayaa Beesha Habarjeclo diiday inay iska sharaxaan Xildhibaan Golaha Deegaanka ee Xisbiga Kulmiye deegaanka ee magaalada Hargeysa oo doonayay inuu Xisbiga Kulmiye iska sharaxo ayaa la sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu diiday inuu noqdo mar labaad murashaxa Golaha Deegaanka ee magaalada Hargeysa. Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inuu yiri Beesha Habarjeclo ma tagto magaalada Hargeysa oo Iskama Sharixi-karaan Golaha Deegaanka ee magaalada Hargeysa isaga oo ku sababeeyay doorashadii hore ee uu qabtay madaxweynihii hore ee xilka ka dagay Beesha deegaanka ee Somaliland Axmed Siilaanyo inuu Xildhibaankii ka soo baxay Beesha Habarjeclo ee uga sharaxnaa caasimadda Somaliland ee Hargeysa Xildhibaan Caga-yare uu ku soo baxay Xaaran taas oo uu sheegay inuu u boobay wasiirkii hore ee madaxtooyada Xirsi in doorashada 2021 ee la doonayo inay ka dhacdo dalka Somaliland ee golaha deegaanka iyo aqalka golaha wakiilada Somaliland Beesha Habarjeclo xaq u lahayn in xildhibaan golaha deegaanka xisbiga Kulmiye iska sharaxaan caasimadda Somaliland ee Hargeysa doorashada 2021 Muuse Biixi Cabdi oo diiday in golaha deegaanka ee doorashada 2021 ay Beesha Habarjeclo iska sharaxdo magaalada Hargeysa xisbiga Kulmiye waxaana la sheegay in uu ku yiri Xildhibaan Caga-yare oo doonayay inuu xisbiga Kulmiye golaha deegaanka iska soo sharaxa ee doorashada 2021 in uu ku yiri Kulmiye iskama sharaxaysid ee iska soo sharax xisbiga wadani ama cudhalka doontaan taga ee lama aqbalayo doorashada 2021 in ay golaha deegaanka xisbiga Kulmiye Habarjeclo iska soo sharaxdo. Muuse Biixi Cabdi oo gabi ahaanba diiday in ay Beesha Habarjeclo aan iska sharaxi karin xisbiga Kulmiye golaha deegaanka ee caasimadda Somaliland Hargeysa. Muuse hase yeeshee toddobaadkan ay ku jirno ayaa maayarka magaalada Hargeysa Soltelko oo mar labaad ka soo sharaxay golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa balse Muuse Biixi Cabdi ayaa xildhibaanada golaha deegaanka mar labaad u ogolaaday in xisbiga Kulmiye iska soo sharaxaan waa xildhibaanada beeshiisa halka xildhibaanadkii aqalka golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa Caga-yarena oo ah Beesha Habarjeclona uu diiday in uu iska sharaxo xisbiga Kulmiye guud ahaanba Muuse Biixi Cabdi ayaa iska hortaagay ama diiday xisbiga Kulmiye in ay golaha deegaanka iska sharaxaan ee magaalada Hargeysa Beesha Habarjeclo.